Mikel Arteta oo taageerayaasha Arsenal ka codsaday arrin yaab leh. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa taageerayaasha kooxdiisa ugu baaqay inay sare u qaadaan xiisadda garoonka Emirates kahor kulanka semifinalka UEFA Champions League oo ay la ciyaarayaan PSG. Kadib guushii weyneed ee 3-0 ay Arsenal kaga adkaatay Real Madrid wareegii 8. Arteta ayaa carabka ku adkeeyay in kooxda ay u baahan tahay taageero ka badan tii ciyaartaas. Waxaan u baahanahay taageerayaal ka badan kuwii kulankii Madrid, ayuu yiri Arteta. Ma rabtaan inaad samaysaan wax gaar ah. Garoonkaas waa inuu noqdaa meel aan horey loo arag, ayuu sii raaciyay isagoo si qiiro leh u hadlaya. Baaqiisa ayaa yimid kadib markii taageerayaasha Arsenal, gaar ahaan kooxda Ashburton Army, ay aruuriyeen 12,000 oo pound si ay u sameeyaan bandhig garoonka ah. Hase yeeshee waxaa loo diiday sababo la xiriira waqtiga oo xadidan. Inkastoo arrintaasi la diiday, Arteta wuxuu adkeeyay in taageerada jamaahiirta ay lama huraan u tahay sidii Emirates Stadium loogu rogi lahaa qalcad adag. Iyadoo Arsenal ay doonayso inay gaarto finalka Champions League markii ugu horeysay tan iyo 2006. Fariinta Arteta waxay muujinaysaa muhiimadda taageerayaashu ku leeyihiin riyo-gaarista taariikh kale. Dhanka kalena, Liverpool oo lacag waali ah ku qarash garaynaysa soo iibsashada 2 boos oo muhiim ah. Liverpool ayaa qorsheynaysa inay taageerto tababare Arne Slot iyagoo siinaya mid ka mid ah miisaaniyadaha ugu waaweyn ee taariikhda kooxda si ay ugu dadaalaan hanashada horyaalkoodii 21aad ee rikoor jebinta ah, sida uu qoray wargeyska The Telegraph. Iyadoo dabaaldegyada guushooda Premier League ay weli socdaan, shaqo ayaa si hoose uga socota qaybta qarashaadka si loo siiyo Slot xoojinta uu u baahan yahay si uu u difaacdo horyaalkan. Kooxda shaqada qandaraasyada ee Liverpool oo uu hogaaminayo agaasimaha sportsiga Richard Hughes iyo madaxa Fenway Sports Group Michael Edwards ayaa bilo badan qiimeynayay bartilmaameedyada suuqa. Tan iyo markii Slot la keenay, Liverpool waxay sameeyeen 2 saxiix oo keliya, garabka Federico Chiesa iyo goolahayaha Georgi Mamardashvili, kaas oo si amaaha dib loogu celiyay kooxda Valencia xilli ciyaareedkan. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo miisaaniyad weyn la heli karo, Liverpool waxay diyaar u tahay inay sameyso dhaqdhaqaaqyo waaweyn suuqa xagaaga soo socda. Mudnaanta ugu weyn ee Liverpool xagaagan waxay noqon doontaa inay soo qaataan weeraryahan cusub iyo difaac bidix. Suxufiyiinta iyo khubarada suuqa ayaa horey u aqoonsaday tiro bartilmaameedyo ah oo suuragal ah. Ugu dambeyntiina, Real Madrid oo war weyn ka soo saartay heshiiska Alexander Arnold. Warar cusub oo ka soo baxay warbaahinta Spain oo uu ka mid yahay Marca ayaa sheegaya in Real Madrid ay dhamaystirtay heshiiska daafaca midig ee Liverpool Trent Alexander-Arnold, iyagoo filaya inuu xagaaga soo socdo si rasmi ah ugu biiro kooxda. Alexander-Arnold oo 26 jir ah kana tirsan xulka England ayaa la filayaa inuu si xor ah ugu wareego Real Madrid marka uu dhammaado qandaraaskiisa Liverpool, inkastoo weli aan si rasmi ah loo